بسم الله وتحنيهنا عقبتها جوشة هي عقبة الصدحات وأين سوق قادم دون مانتا وعبسدة أما بقاها وقضب كلاوس نود حيابها قفو ديدي كرينو الرمي الرياضيسة أما وحنتهن كيسة وحين كهاد دونا انت الكوكو دي تشرم موقال كان نوعية عبسدة sababta iyo xalka waan mid kasta laba qodob ka sheegi doono hadaan ku horeyna noocyada cabsida marka koobaad waa si guud oo cabsidu waa laba mar ay tahay dhab baqa ama waxa uu qofku ka baqanayo iyo waxa uu ka cabsanayo waa wax dhab ah oo xaqiiqa oo jira cabsida labaadna waa khiyaali waa baqa khiyaali ah si aan markaa u sii fahanno waxa kala duwan midna ka dhiga cabsi dhab ah midna khiyaali marba haddii labadiiba aan dareemayno aan sheegno markaas sababta cabsida marka horeba sababta cabsidu waxa weeyaan inuu qofku dareemo oo uu baqaa waa mid ka mid ah nimcooyinka Ilaahayna siiyay haday tahay cabsida iyo haday tahay dareemada kala taban ee aadamuhu dareemo kulligood sabab wanaagsan oo Ilaahay noogu talagalay baa jirta tusaale cabsida maskaxdu waxay soo deysaa hormoon kaasoo markaa jirka isbedel ku sameeya markay khatar dhab ah jirto sida berigii hore kale dadka ugaarsatada ahaa ee cabsiyaha badan iyo khatarta badan kaymaha lagala kulmi jiray iyo ilaa maanta oo bini'aadamku khatar la kulmi karayo oo aynu nahay kuwo u nugul markaste waxyaabo khatar ah oo dhici kara oo ayna waxyeelayn kara marka khatar dhab oo jirta markuu qofku saasoo kale uga soo horbaxo wuxuu dareemayaa uu baqanayaa hormoonka maskaxda soo deysay ayaa jirka isbedel ku sameynaya waxa isbedelaya muruqyadaada waxa isbedelaya dhiigaagu siduu soconayay indhahaaga isbedelaya galka ka baxaya neef qaadashadaada wax iska bedelayaan wadnahaaga garaaciisa isbedelaya intaasoo arrimood isbedelaya waxay ku diyaarinayaan inay awood dheeraad ah ku siiyaan oo aad ku survive garowdo ku badbaadiso naftaada adigoo laba arrimood la imanaya inaad khatarta wajahdo oo markaa already aad soo gaadheen oo isdifaacdo iyo inaad orodod cagaha wax ka daydo adoo labada jeerba awood aanad isku ogeyn aad isku arkayso oo qofku markuu baxsanayo kaymaha iyo qodxaanta uu jiirayo iyo siduu ordayo aanu filanaynin inuu saasoo dhan ordi karayo xataa mararka qaar qofku isagoo dhaawac ku yaalay ay ordaya oo meelo badan ka boodaya isagoo wax xanuun dareemeen waa nimco marka Ilaahay bini'aadamka ugu talagalay inay marar badan khatarka ka badbaadaan taas marka waa markay dhab tahay ee khatartii aad arkayso ee aad ka soo horbaxdo inaad dareenka dareento dareenkaasina uu ku diyaariyo markaa isdifaac amba orod haddaba khatartu markay khiyaaliga tahay ma jirto wixii dhab tahay aad ka baqanaysay laakiin waxaa laga yaabaa maskaxdu inay mar walba hormoonkii soo deyso keliya ta isbedel yara dhacay oo noloshaada aad samaynaysa daraadeed waayo iyadoo aanba jirkaagu had iyo jeer isagu ma arkayo mana garanayo waxaan inuu run yahay iyo in kale qofka ayaa qalbigiisa iyo maskaxdiisa iyo fikirkiisa adeegsanaya oo marka dama ku kala saaraya waxaan inay runta iyo waxa kale marka adiga ee shaqo ku taala inaad kala garato laakiin jirku mar walba isaga luqada ku hadla waa dareen feeling oo marka inuu wuxuu dareemayo ku sheego in isbedel jiro oo marka taxadar ay tahay qofku uu isdiyaarinayo in khatar iman karayso marka waa marka khiyaaliga tahay iyo marka dhabta tahay labada jeerba maskaxda hormoonkii way soo deeyaan ama dheecaankii dabeetana mar walba dareenkii waa dareemaysaa haddaba marka khiyaaliga laga hadlayo
waa marka ay guusha badan la xidhiidho arrinka guul la xidhiidho laba ayaynu u qaybinaynaa markana oo marka guusha laga hadlayo cabsida aan ka hadlayno laba arrimood hadaan u qaybino mid waxa weeyaan cabsi uu qof ka baqayo inuu fashilmo ama cabsi uu qof ka baqanayo guusha lafteeda uu ka baqanayo waayo mar haddii guul aan ka hadlayno qofkani wuxuu doonayaa wax cusub inuu sameeyo hore u sameyn jirin ganacsi buu sameynayaa siyaasad buu gelayaa safar buu gelayaa dadaal buu sameynayaa waxa qofkani wax buu qorsheeyay mustaqbalka fog dabeetana wuxuu doonayaa inuu hawl cusub sameeyo oo inuu sameyn jirin isbedelka marka ku iimanayo qofku sameynayo maskaxda hormoonka way soo deen iyadoo kule waxba kugu cusub baryahane taxadar wasida gaariguba marka khatar jirto laga yaabo inuu gaarigu leer cas ku soo saaro leerka cas waa laba mid inay tahay inaad taxadarto oo eegto gaariga iyo dib weyn heen iyo inay ta gaariga inaad degdeg u geyso meel lagu hagaajiyo ama aad halka ku istaagto oo aad hubiso inaad hagaajiso marka dareento wuxuu baad isweydiinaysaa waxaan ma wixii dhabtahaaba mise waa tii khayaalkayd qofku muxuu fashalka uga baqayaa fashalka qofku wuxuu uga baqayaa inuu wax khasaaro oo mar waa ego problem iyo qabkiisa u baqayaa in la diido in dadku ku weersadaan inuu wax qaldo in lala yaabo marna khasaare iyo qalad soo gaadha inuu wax waayo ayuu ka baqanaya marka waa fashil amba egogiisa iyo qabkiisa ha ahaato amba inuu wax khasaaraya ka baqo wax mustaqbalka ah oo ay tahay inuu sameeyo ilaahay wuxuu mustaqbalka inooga qariyo waxay nagu dhacayaa iyadana waa nimco kale oo haddii ogaan lahayn wax walo inagu dhacayaa arrin adag bay noqon lahayd dadkuna farxadba kumay noolaadeen marka waxa la inooga qariyay waxa weeyaan inaan mustaqbalka wax qorsheyn karayno u dadaali karayno ilaahayna u dayno waxa mustaqbalka dhacaya laakiin adigu aad la timaado dadaalkii mar haddii aanay jirin khatar dhaba oo ka hortaagan oo ka hortimid oo markaa tahay inaad amba istifacdo amba cararto marka taas waa fashilka waxa isweydiin leh qofka fashil inuu ka baqo garanayo wax buu khasaari karaaba oo wuxuu leeyahay billay saas igu dhacdaa haddii aan sidaas sameeyo billay sidaas igu dhacdaa haddaan qofka waxa weydiiyo billu idiidaa haddaan halkaa tago billay sidaas igu dhacdaa marka waa if iyo haddii iyo billo waxba qofka sawaranaya aan jirin laakiin guusha haddaba maxaa keenaya in la baqo oo qofka guusha lafteeda ka baqo taas waa fashilkee qofku inuu guusha ka baqo waxa keenaya bini'aadamku sidiisaba marka hore wuxuu ku jiraa xayndaab amba goobo xasiloon oo marka wax routine inuu maalin walba sameeyo isku mid ah dabeetana uu la qabsaday way u fududaatay wax caadi la noqotay marka waa deegaan amba goobo nabdoon weeyaan laakiin markuu guul rabo inuu sameeyo riyo rabo inuu rumeeyo ee uu safar gelayo ee uu hawl gelayo ee dadaal gelayo wax isku dayo ganacsi sameynayo ee uu wax baranayo routinkii buu ka baxaya wax cusub sameynaya maadaama routine ka baxayo jirkii wali wuxuu dareemayaa maxay feelimkii cabsida ahaa way wax cusub baa sameeyay waa taxadar laakiin run ma waa cabsida khayaaliga ma cabsida dhabtahay guusha siyaabo kalena waa ku imanaysaa in la baqo de wax kastoo qiimo la lagu raadiyaa waqti baa ka lumaya qarash baa ka bixi kara dadaal iyo hawl bay kaaga baahantay ka lahaad bay kaaga baahantay marka qofku safarka guusha oo aan ahay wax si fudud ku imanaya rafaad iyo hawl la yeelan karo oo la qaldami karayo ayaanu qofku hoos inside amba si hoose aanu diyaar ugu ahayn oo markuu isku dayo waxaasi u muuqan karayaan dabeetana markaas dib u joogaya marka feelinku waa isku wada mid cabsidu ama ta dhabta ama ta khayaaliga ama ta fashilka ama ta guusha kulli qofku isku xumbu dareemaya xalku muxuu yahay marka xalku marka waa laba arrimood koow inaad isweydiiso arrimaha aan ka soo hadalay adigoo ka tusaale qaadanaya ma cabsidii dhabtaheed baa mise waa khayaali mar haddaad isweydiinta iyo fahamka haysato waxay ka dhigantahay xalkii qaybaad haysaa oo haddii ana sidaa wax kugu kala baxsanayn markastoo dareenkii cabsida dareento dib baad u joogaysaa wixii ma samaynaysid arrinta labaad maxay tahay xalku adigoo weli dareenkii qaba samee do it anyway si kastaba samee adigoo weli baqaya
dadka dunida wax ku soo kordhiyay ee guulaha loo tirayaa hawlaha waaweyn ee xaqiijiyeen cabsi bay dareemayeen in badan oo kamid markay sameynayeen iyagoo baqanayaan ay sameynayeen sidaas ay ku rumeeyeen kuwa badan oo arrimaha iyo fikradaha wax ka waaweyn hayayna waxay riyooyinkooda u rumeyn waayeen markay dareenka dareemaanba dib bay u joogayeen caqabad baana ku noqonaysay marka farqigu waa inta xalkuna waa labada arrimood isku soo duub cabsidu mar waa mid dhaba marna waa mid khayaaliya jirku dareen isku mid u bixinaya laakiin qofka ayay tahay markaa inuu kala garto ma tii dhabtahayd ama soo tii khayaaligahayd markuu khayaalka yahayna qofku wuxuu ka baqayaa inuu fashilmo amba wuxuu ka baqayaa guusha lafteeda safarkeedaas oonu diyaar u ahayn marka mar walba dareenkii buu helayaa xalkuna waxa weeyaan inaad marka hore saa u fahanto ood isweydiiso ma dhabtiiba ma khayaaligiiba ma fashil baad ka baqaysaa ma guushaad ka baqaysaa maxaad uga baqaysaa iyo arrinta labaad oo ah adigoo weli dareemaya marba hadduu cabsidii khayaaliga ahayd inay tii aad ogaatay do it anyway samee si kastaba ha ahaatee intaas kuga imanna muuqaalka xiga iyo qaybaha kale taxanaha aad baa u mahadsantihiin subscribe si aanan kuwa dambe ku dhaafin waa mahadsantihiin asalaamu calaykum